iyo dhammaan shacabkii Jamhuuriyadda Soomaaliland dalkeena ku nool ka inta ahaan waxaan rabaa in aan halkan mahadka looga celiyo gudoomiyihii hore Cabdifataax walaashay muna gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda iyo walaalkay wasiirkiisa halkaa goobta loogu doortay gudoomiye ku-xigeenka Cali Xaashi labada waxaan ay isugu dhawaada jaaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ahayd jaaliyadda keliya ee dalweynaha Germany ugu dhisan muddo dheer jaaliyaddu waxaa intii ugu muddada dheereed hayay gudoomiye jaaliyadda mudane Dacsan oo walaashay isku gobolka soo wada jeedaan waxaad moodaa qolyaha iyagan reer haysan iyo reer baayar markii dambe lagu soo wareejiyey baash inay xoogaa xubin badan yara dhacday ka inta ahaan waxaa gudoomiyaha islamarkaa uu Dacsan ku wareejiyey ambaasadorkeeni hore mudane Cabdifataax oo isaga aan ugu wareejinay xafladii keliya ee ugu dambeysay wasiir Somaliland ka soo qayb galay dalweynaha Germany wasiir Shukri Xaashi Madane wasiirka deegaanka ay ka ahayd markaa guddigii ku wareejinaysay gudoomiye Cabdifataax safiir Cabdifataax wuxuu si sharaf leh ugu wareejiyey walaalkeen Cabdifataax maantana Cabdifataax wuxuu ku wareejinayaa marwada keliya jaaliyadda Somaliland intii ay jirtay maanta isu soo taagtay doorashada lagu guuleystay in loo qabto masabkaan inoo buuxisa walaashaynima kamuna waxaan uga sii qordaari karnaa inay tahay qof waddanka ku dhalatay oo dee muranku wuxuu nagu bataba intii dambe qolyaha dambe yimaadeen oo muranku aada usii xoogeystay dib maanta kagama jirtay maanta waxday rabnay u soo dhawo qolyaha jaaliyadda oo isku duuban midnimada qaranka inay ka shaqeeyaan muni waxay kaloo fududaynaysaa oo ay qarankiina u fududaynaysaa goob walba iyo madal walba oo aanay dadkeena gaargaari karin intan dambe in iyadu madal walba tagto Jamhuuriyadda Soomaaliland madal walba ka shaqeyso goob walba ka shaqeyso tahay shakhsiyad ku faani karta qarankeedii tahay qof ku faani kara ummaddeeda iyo bulshadeeda ay magaca Jamhuuriyadda aad matasho magaca qaranka aad matasho waxaan u malaynayaa inaad tahay qof horumarin kara qof guulo badan ka gaarsiin kara intii jaaliyaddu jirtay ee jaaliyadda Somaliland jirtay walaalkeen Cabdifataax gudoomiyuhu ugu dambeeyey yahay waxay qabatay waxyaabo badan waxay aada u dhiirigelisay dhalinyarada waxaa jira dhalinyaro badan oo jamhuuriyaddeena oo dalka wax ku qabta Cabdifataax magaca Jamhuuriyadda Somaliland iyo baasaboorka Jamhuuriyadda Somaliland buu ku wareejiyey gudoomiyaheenu hore maanta numra oo dalkan u dhalatay Somaliland-darada gudoomiyaheenu ugu wareejiyo oo shacabka Jamhuuriyadda Somaliland u gartay codna ku taas